إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الأعزاء weli waxaan ugu jirnaa muxaadaradii aan hadlaynay iftiiminta axkaamta ku saabsan soonka. muxaadadan insha Allah ta'ala waxaan ugu hadli doonaa thubuutu shahri ramadaan, bisha ramadaan sugnaashaheeda. bisha ramadaan sugnaashaheeda ama soo gelideedo laba arin ay ku sugnaan kartaa. arinta koowaad waxa weeyaan ru'yatu hilaali ramadaan, bisha ramadaan oo la arko. haddii marka bisha la arkaa waxa waajibaya in la soomo. Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu yiri فمن شهد منكم الشهر فليصمه قفكي بيش سو غارا اما حاضره اما باركايا حصوم عبد الله بن عمر تعالى عنهما وحو ليهي رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام وحو يري اذا رايتموه فصوموا بيش مركاد ارغتان صوما واذا رايتموه فافطروا بيش مركاد ارغتان نفر ارغتكو صوما ارغتنكو فر فان غم عليكم فاغدروا له هدي الذي كقريو ود اركي ويسان بيشي صدنكيسو كاملة مالك النبي عليه الصلاة والسلام وحوري الشهر 29 ليلة بشوا السيال إلا باتن هبين فلا تصوموا حتى تروه إلا كارتان هسومنا فإن غم عليكم هدي أو كلا دحقال معنى هدي أد بشي أركي ويسان وياني فأجملوا العدة 30 صدنك بوحية حديثك هو روح وريي بخاري مسلم حديث كان روح وريي بخاري سوك النبي عليه الصلاة والسلام وحوري صوموا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته أريكتد بشك صوم أريكتد نكفرة فإن غبي معناها هدو ذيك غرصونا ذوياني عليكم كركنا فأكملوا عدة شعبان 30 صدن كشعبان بوحيو هاوينك بش شعبان أيتاي صدن هدي اللوايا بش رمضان ويدلن ويسو صدن كالبوحينا هاوينك حيقا يوحو نقونا هاوينك كواد بش رمضان بالله وكذا حديث كان حديث صحيح ما بخاري مسلم يسو صاري أريكتد بش رمضان لا أركا محيكو سونان كرتا عدد قاري ما الله شرديا oo la leeyahay inta haday arkaan bisha ramadaan yaani maragtay way sugnaan kartaa. bisha ramadaan soo gelideeda ama aragtideeda waxay ku sugnaan kartaa hal qof oo arko sida akthar ahli cilmi ay qabaan. ahli cilmi intoodan waxay qabaan hal qofood oo muslim ah oo wanaagsan haduu bisha ramadaan oo sheegay in dhalatay warkiisa in la qaadanayo. waxaana qaba Abu Hanifa, Imam Shafi'i, sida saxiix ka agtiisa Imam Ahmad iyo culimo fara badan. الشيخ ابن مدير ما دورتي ابن قدامه وحو كتاب كيس مغني كدهي هذا الكي عمر ويان وعمر اساس قبه وهل قفض بش اركه ولا سوميا سو كلا وحا قبا علي عبد الله بن عمر عبد الله بن مبارك راجع سي وحا راجح كدغي الشيخ ابن باز iyo الشيخ ابن عثيمين halka waxa laga garanaya hal qofod bish ramadaan dhalashada haduu sheego ana arki u yiraahdo qofkan qof lagu kala soo yahay oo wanaagsan oo yahay iyo oo been iyo xumaata lagu aqoonin warkiisa waa la qaadanaya. وحنا توصينا حديث عبد الله بن عمر تعالى عنهما عبد الله بن عمر وحوري ترى الناس الهلال dadka ba bish istusiyay oo bish yala raadiyay فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك baan u sheegay bish ana arkay fasaama nabigu waa soomay wa amara an-nas bisiyamihi dadkana wuxuu faray inay soomaan wa xadiis sahih Abi Daawud ayaa soo saaray Imam Albani xadiis sahih buu ka dhigay. bisha ramadaan waxay ku sugnaan kartaa hal qof haduu arko waxa la leeyahay bish way dhalatay qofkan uu yahay qof warkiisa la qaadanayo. bisha ramadaan kuma sugnaan karto wax xisaab loo yaqaan xisaab faliik in isku dhufto leedahay bisha intaas ay ku aadanta intaas ay dhalinay sidii kalendaariga loo sameeyo oo kala bisha ramadaan kuma sugnaanayso aragti baa lagu soomi aragtina waa lagu furhayaa sida ay qabaan akthar ahli cilmi weeyaan. qodobka koowaad bisha ramadaan sugnaasheed wuxuu noqday in bisha ramadaanka la arkayba. qodobka labaad oo bisha ramadaan ku sugnaan kartana wuxuu yahay ikmaalu ciddati shacbaan 30 saddex shacbaan in la buuxiyo. haddii bisha ramadaan la arki waayo habeenka 29 ay tahay bisha shacbaan soddon keedan kaamilina arintan waxa isku raacsan madahibta fiqiga ee afarta ah wa Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Imam Ahmad weeyaan. sababta waxa la og yahay bisha islaamka ama bisha hijriga 29 kama yaraan karto kamana badnaan karto soddonna kama badno 29 kama yaraan karto sida bilaha milaadigo qarna 28 markuu dhamaanay mar 29 ku dhamaanay mar 30 ku dhamaanay mar 30 ku dhamaanay sidaas oo kala ma ahan. habeenkii bisha shacbaan ay soddon tahay bisha ramadaan la arki waayo soddonkii baa la kaamila. mas'ala kale kalina oo thubuutu khuruuj shahr ramadaan bisha ramadaan dhalashadeeda ama sugnaanshaheeda wixii ku sugnaanay waa soo sheegnay
bixitaankeeda meequu ku sugnaan karaa hadda waxaan soo sheegnay bisha ramadaan aragtay waxay ku sugnaan kartaa hal qof oo caadil ah oo markhaati ka ah bixitaankeeda ama bisha ramadaan way dhamaatayna maxay ku sugnaan kartaa bisha ramadaan way dhamaatay marka la leeyahay laba arrin mid bay ku sugnaan kartaa mid koowaad waxa weeyaan ru'yatu hilaali shawaal bisha shawaal oo la arkay bisha shawaal baaba dhalatay waaba la arkay isha la saaray ramadaanka waxa leeyahay waa dhamaaday rasuulullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay idaa ra'aytumuhu fasuumu wa idaa ra'aytumuhu faafdiru haddaad bisha aragtaan sooma haddii bisha kala dhalatana soonka fura xadiis bukhaari muslim ay soo saareen saxiixa weeyaan culimadu waxay leeyihiin kuma filno bisha shawaal aragtideedii hal qof inuu marqaati kaca ama u cadeeyo waxa la muraan bay dhaheen laba marqaati oo caadil in la helo waana si isku raacsan yihiin madaahibta fiqiga ee afarta ah weeyaan waxayna daliishanayaan xadiiskii cabdiraxmaan ibn zayd ibn al-khadaab wuxuu yiri asxaabtii nabiga waxay sheegeen inuu nabiga yiri suumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi aragtu kufura aragtina ku sooma wan kusu laha u cibaada sameeya fa in gumma alaykum fa akmilu 30 hadii ay bishi ad arki weysaan duru idigalna soddonka buuxiya fa in shahida shahidani macluushad arman halkan weeyaan fa in shahida shahidani laba marqaati haday marqaati kacaan fasuumu sooma wa afdiru afura xadiiskaas waa xadiis saxiix oo imaam ahmed iyo nasaa'i soo saaray imaam albani xadiis saxiix buu ka dhigay bishi shawaal marka sugnaanshaheeda waa in laba qofood la helaa soonka dhamaashihiisa ama bixidiisa waxay kale ku sugnaan kartaa ikmaalu ciddati ramadaan 30 soddonkii ramadaan in la buuxiyo soddonkii ramadaan haduu buuxsamo soddon iyo 1 bil noqonaysa ma jirto sadarta marka soddon markii la buuxiyo soddonkii baa lagu ekaanaya maxay ila xadiiskii aan hore u soo marnaa wuxuu ahaa idaa ra'aytumuhu fasuumu wa idaa ra'aytumuhu faafdiru fa in gumma alaykum faghdiru lahu bukhari muslim ayaa soo saaray macluushadka xadiiska la diisan waxa fa in gumma alaykum faghdiru lahu bimaana waxa weeyaan bishi shawaal hadii la arki waayo soddonkii ramadaan dhameystira ujeedadu waxa weeyaan hadii aan bishi la arkin ama ha noqoto bishi ramadaan dhalashadeeda ama bishi shawaal dhalashadeeda soddonka la buuxinaya halkaas waxaan u gudbaynaa soonka waajibka waxaan u gudbi doonaa insha Allah ta'ala asyaamul mustahab soonka la sunneeyo qofka muslimka waxa loo sunneeyaa inuu soomo soon tadawca alla dartiina uu soomo iyadoo laga fogaanay maalmaha in la soomo ay xaraan ka tahay oo aan banaaneen rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man saama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu 'anil naari 70 kharifa qofkii alla darti u soomo maalin Allah subhanahu wa ta'ala wajigiisa wuxuu naarta ka fogeenyaa 70 sano in loo socdo yani 70 dayrood ama 70 sano in loo socdo ayaa wajigaada naarta laga fogeenyaa hadii alla darti u soonto waa soonka sunnada weeyaan xadiiska waa sahih bukhari muslim ayaa soo saaray haddaba waxaan isbaraarujinaynaa maalmo waxa jira in la soomo ay sunno tahay maalmahaasi waxa kamid ah 6 maalmood bish shawaal la soomo markuu ramadaanka dhamaado oo ramadaanka aad dhamaysato 6 maalmood ay ku xigto bish shawaal ina soonto marka laga reebo maalinta ciida yani maalinta ciid maalinta ku xigto ayuu ka bilaabanaa soonka ee shawaalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man saama ramadaana thumma atba'ahu 6 min shawaal kana ka siyaami dahri qofkii ramadaanka sooma 6 shawaal kamid aanan raaciya wuxuu la mid yahay qofkaasi sanadka oo dhan qof soomay xadiiska waa sahih muslim ayaa soo saaray soo ka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri siyaamu shahri ramadaana bi 10 ashhurin ramadaanka oo la soomay 10 bilood buu u dhigmaa wa 6 ayaamin ba'dahunna shahrayn يعني لحد مالمود رمضان كبعد للصومينا لبا بلود باي udhigantaa fadalika tamamu sanatin taa sanad way dhameystiraysaa marka oo macnaheedu waxa weeyaan soonka haduu noqday 10 bilood lixda maalmoodna ay u dhigmaan laba bilood 12 bilood adoo soonaa ay la mid tahay mar hadii ku dhamaato bisha ramadaan oo aad raacis 6 maalmood oo kamid ah bisha shawaal waxay culimadu ka hadlaan maalmaha la soomeeyay bisha shawaal maalmahaas in israacaan oo la xiriirmiya waajib ah ama ahan maalmo kala duwan ayaa soomi kartaa waxa banaan 6 maalmood ee bisha shawaal aad ka soomaysid maalin dhaaf ina soonto ina isku xiriiriso ina yani isniin khamiis oo kale aad ku dhamaysato way ku banaan tahay waxaas ugu fiican in xiriiriso waliba aad ka bilowdo maalinta ciida maalinta ku xigto 6 saac ku dhamaysato naftaada wali waxay la haysataa soonkii Soomahan marka in israacisa ku fiican si hadhowna macnaha mashquul ugu galin oo ajirka farabadan uusan ku dhaafin waxaas jirta mas'ala ku saabsan 6 maalmood ee bisha shawaal laga soomayo hadii qofka soon lagu leeyahay ama maalmo inuu qadeeyo laga rabo ay jirto maalmahaas ma soomaya mas'ala muhiim ah walaalayaal hadii 6 maalmood aan niri in la soomo way fiican tahay laba bilo ajirkood bay u dhigmaan oo nabiga leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxa la isweydiin karaa iyadoo qofka ay ka tageen oo lagu leeyahay maalmo ramadaan kamid ah oo inuu qadeeyo ay waajib ku tahay ma soomi karaa 6 maalmood maxay arinta culimadu ka dhaheen culimadu arinta way isku khilaafeen si guud ahaano waxay yiraahdeen
iyadoo ramadaanka aan la qadaynin in sunnooyinkan la soomo ma bannaan tahay culimada qaar waxay yidhahdeen way bannaan tahay iyadoo aan la kahanaynin waana sida uu qabo madhabu xanafiya iyo riwaayo ku sugnaatay xanaabilada agtooda culimana waxay yidhahdeen way bannaan tahay in la soomo laakiin waa karaahiya waa sida uu qabo madhabu maalikiya iyo madhabu shaaficiya culimada qaar waxay yidhahdeen waaba xaaraan in la soomo maalmahan 6 ah iyadoo soon ramadaan lagu leeyahay waana madhabu xanaabila soo qabo arinta culimadu isku khilaafeen ama 6 maalmood ee bisha shawaal ka tirsan iyadoo soon qofkii wixii ka tagay uusan wili qadaynin ma soomi karaa culimada qaar waxay yidhahdeen waa soomi karaa sababtoo ah gudida uu guday maalmihii ka tagay ee ramadaan kamid ahaa inuu gudaa si degdeg ah waajib kuma ahan oo waxa leeyahay waajib foori ma ahan waajib oo yaani degdeg loo rabo ma ahan oo ikhtiyaari buu leeyahay culimada qaar marka saas ay yiraahdeen qaarna waxay yiraahdeen maba banaana in la soomo marba hadii maalmo ramadaanka lagu leeyahay culimadaas waxay ku deynoo leeyihiin 6 maalmood bisha waa laga soomayo waxay ku xiran tahay 30 ramadaan la dhameystiro arintan waxa tusinay hadalka nabiga kaleey salaatu salaam ee ahaa man saama ramadana thumma atba'ahu 6 min shawwal kana ka siyami dahri qofki ramadaanka soomo kadibna 6 maalmood oo shawwal ka tirsan raaciya qofkaasi wuxuu la mid yahay qof 12 bilood oo soomay xadiiska waxa laga fahmaa bay dhaheen in lama horaan ay tahay maalmahaasi inaad qadayso marka qadayska bacdi waa soomi kartaa saasi culimadu qaar yiraahdeen kadib bisha shawwal inta lagu guda jiro maalmihii ku dhinaana waa sii soomi kartaa masala si kooban waxaan dhihi karnaa qofki iyadoo lagu leeyahay maalmo ka tagay bisha ramadaan cudur daarna ugu tagay ama cudur sharci haystay inuu soomo 6 maalmood oo kamid ah bisha shawwal way u banaan tahay waa si culimo badan ay qabaan mas'aladaas hoos galayso oo ah qofki maalmo ay ka tageen bisha ramadaan inuu gudana laga rabay مثلا in 6 maalmood ah ka soo qabo waxa ka tagay ramadaankii 6 maalmood ee shawwal muuniyay kara oo ma dhihi kara maadaama lagu leeyahay 6 maalmood oo ka tirsan bishii ramadaan 6 maalmood ee bishii shawwal baan soomi waxaan u niyeysanayaa hal mar qadihi ramadaanka iyo 6 maalmood ee shawwal baan u niyeysanayaa arinta ay ma banaantay maxayna culimadu ka dhaxeen culimada arintaas ilaa 2 qowl ay ka qabaan intaan arkay qowl wuxuu leeyahay qada iyo 6 maalmood in la jamciyo ma banaan soom baan qadaynaya waajib lagu leeyahay 6 maalmood waa u niyeysanayaa arintaas idima banaan waana sida ay qabaan jumhuurul ulama waana soo fadwooday Sheikh Ibn Bazi iyo Sheikh Ibn Uthaymeen iyo culimo kale oo fara badanba mas'alaas waxa loo yaqaan fuqaha agtooda at-tashriik wadaajin marka waxa weeyaan cibaado waxa jirto iswaafaqayo oo la isku niyeysan karo midalan adoo soo weysa qaatay ee misaajidka soo galay weesada 2 ragcoo sunna ah dukanaysa 2 ragcoo sunna waxay ku noqon kartaa u niyeysan kartaa tahiyatul masjid waxa kale oo niyeysan kartaa sunnatul wudu waxa kale oo niyeysan kartaa sunnada raatibada aheeday ee salaada soo socoto dukanaysa ka horeysay midalan duhurka oo kala taayada way banaan tahay has ahaatee waxay yiraahdeen qadaa ramadaan iyo 6 maalmood shawwal laga soomaya ma kulmayaan lama jamci kar bay dhaheen waa laba cibaado oo kala mustaqil bay dhaheen qadaa ramadaan adii daatiis baa loo qasdayaa 6 maalmood bish shawwal ka tirsana daat ahaanto ama naf ahaanto baa loo qasdayaa saasay ku kala duwan yihiin culimada qaar waxay yiraahdeen in la jamciyo way banaan tahay oo qadaa ramadaan iyo 6 maalmood in la jamciyo way banaan tahay laakiin waxa raajacsan qowlka jumhuurul ulama ee dhahayo 6 maalmoodna goonima u soomaysa maalmihii soonka lagu lahaayna goonima u soomaysa mana is dhaxgalayaan wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam